waa mid cajiib ah dhurwaagu xayawaanada kalena waxa uu kaga duwan yahay maamulka iyo awoodda sare waxa iska leh kuwa dhediga xataa haday noqoto tartanka iyo boodka kuwaas maamulaya xagga awoodda waxa uu sarreeyay mid dhediga waxa isku dabareeyaysaa koox dhurwaaya oo soo gaarsata maanta xataa waxa kamid ah oo ku jirta qarayoyooyin وقار aad u feejigan siigu waxbaan dareemin maanta wax weyn ayaa ka gedisan waxaan dareemayaan inay kuwan soo diyaar garoobeen wax yar uun kadib waxay ku noqdeen taaqoodi caadiga sidoo kalena way iska xasileen labadii hoggaanka ahaa ee dhurwaaga ahaa iyagu way u soo gaatifayaan iyagoo si sanqadh la'aana ugu soo dhawaanaya midkan fadhiisteen isaguna waa mid baraad leh isla markiiba hareeraha ayay ka galeen aad bay u gaajoonayeen xamuunna way u qamaan dhurwaaga ugaarsigu waa uga faa'iido badan yahay baktiga sidoo kalena maanta tacabka ay geliyeen ugaarsiga way ka faa'iideen dhurwaagu waa mid aan baqanin xayawaanaadka kale raqdooda ayuu ka qaadaa waxaanu caan ku yahay ugaadhay dilaan xayawaanaadka kale had iyo jeer inuu ku qabsado ama uu aageeda ka soo dhawaado xataa hadduu yahay ay duureedka oo miisaankiisu yahay 60 kilogram oo kaliya isagu xataa uu ka qaadaya harimcadka iyo shabeelka oo mana daynayo mararka qaar markaas ku dhacaan dagaalo ba'an ayaa dhaxmara waraabuhu waxa uu xisaabsan dhanka bisadaha habada waraabihi waxa la miisaan tahay 3 ayya balse way ka dheeraynayaan ay duureedku waa mid xariifa waxa uu adeegsanayaa maskaxdiisa waxaanu qabanayaa waraabaha goljeecda waana isugu tagayaan dhamaan difaaca kale oo haysta waa inuu godka galo ilkaha khatarta badan ee waraabaha ay sidoo kale ka feejigan yihiin waxa uu ku sii baaq noqonayaa waraabuhu halka lama ay ka tagayaan ay duureedku waxa horkacaya ay duureedka mid lab iyo sidoo kale mid dhediga waxa sidoo kale jira qaar yar oo haatan iyagu dhashay waa inay ugaarsadaan maalin walba ay duureedku haddii kale kuwan yar yar hooyadooda kama shaqeeyaan wax ana caqli ma laha laakiin waxay leeyihiin garasha xayawaanku midka labka ay hogaaminaya wuxuu isticmaalaya dhagiisa si uu go'aamiyo xagga ka xigto ugaadho maanta waxa uu maqlay kuwan oo iyagu halkan daaqaya qaarkood way kurgaleenba qaar kale weerar ayay ku ekeeyeen iyagoo isbalaadhiyay kana soo weeraray jiha walba qorshaha ay duureedku waa mid aad u cajiib ah qaarkood way istusayaan iyagoo eriyay halka kuwa kale ay horqabataynayaan jiha walbana ay kaga imanayaan sidaana dhaxda ku gashanayaan xayawaanka ugaadhu way diday deeradu way ka dhax kutay sidoo kale iyagu waxay qorshoodu ahaa inay u eriyaan hab sigsaaga ama hab aan toos ahayn balse qaarkood ayaan hawshii loo diray ka soo bixin ay duureedku saacadii waxa uu jari karaa 35 mayl sidoo kalena energy ayuu hayaa wali uu ku eriyado markaa midana waa eriyad dheer ugu dambeyn waxa ku guuleysteen halkay ku hayeen shiishka isla markay ku soo dhawaadeen boqorsheeda ay bedeshay cawshu waxaanay dhaxrartay biyaha ay duureedku wuxuu aad uga cabsanayaa baalka lagu magacaabay xaaska
isla mar ahaantaasina halkan biyaha way ka shaaceen dib ayaanay uga istaageen. waana guul darro. qorshahoodu wuxuu ahaa mid ay ka baaraan degeen oo caddaana inay mid ugaadha ka mida gaar ula baxaan isla mar ahaantaasina ay hareerayaan balse uu fashilmo. tani macnaheedu waxay tahay ugaadha lafteedu inay leedahay qorshe ay ku baxsato. si ula kaca ayay u dhaxarartay biyaha. run ahaantii waa cajiib. 80% ay dureedku u qaban lahaa balse 30% markay biyaha dhex marto yaxaasku qabanaya inta kalena waxa uu tahay badbaado marka waxay dooratay jooska saxda ah. raxantana ay dureedka hidib ay isku urursanayaan sidoo kalena godka ay ku dhalmanayaan maanta iyagoo gaajoonaya. xoogaa waa inay sugaan inay nastaan intaanay ugaarsi kala bilaabin. ay dureedka tamar badan kaga baxdo ereedka riyanay ugaadha jirkooda fudud awgeed isla mar ahaantaasina markale ay isku dayayaan inay guuleystaan maanta. qorshaha ay ku laabanayaan iyaga laftooda ayaa ciyaaraya kana baraantagay halkii wax ka bilaab lahaayeen. waa markay weerar kala qaadi lahaayeen haatan. midka labka ay ugu weyn ayaa hogaaminaya. mar kale weerarkoodu waa inaan u fashilmin. ay dureedku waxay isku qaybinayaan qorshahooda waxaanay hor jarayaan ugaadha. ay dureedku waxaa ku mid yahay xayawaanada ugu dheereeya markay noqoto kuwa xogaarsta qaaraddan Afrika. sidoo kale waxaa loo yaqaan African Marathons. waxa uu leeyahay dhagadha dheer kuwaas oo ka caawinaya inay jirka heerkulkiisa yareeyaan maqalkana meel fog ka soo qabtaan. waxa uu ka mid yahay xayawaanaadka daaliya ugaadha si ay u yareynayaan markay daashana si fudud ku qabta. balse cawshu qorshaheedii markii hore ayay mar labaad ku celisay. cawshu way daashay sidoo kalena way xiiqday waana og yahay midkan lagu magacaabo ay dureedku. sidoo kalena markan ay dureedku way ka soo gudbay biyaha waana soo dhex galeen. way guuleysteen.